aniyaa kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kafeyday kaalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aryaadhaha war ku xiisa badna maxirtii kalamaanoo xog qarsoon heshaya war afar xiisadoodan maanta qaatay isla xoog badana xukuumaddii xasan khayroos siyaasiyiinta xanaaqsan xirxiray samiya ilaahow niinhirtoy habsana niingiliidoy xasradayn badana ma mucaarad xasuusta xilligii burburka abad ahaan ku nabcaay waa cabsadeen ma dhihi karnee jidka ii xirbadnaa ma mas-uul ka xishooday weerarkii xagjirka amniga in la sugo meesha kama marno isxariifis badna ma beyloo dad xogmooga la xisaabtamaya war xukuumad lan hisaabin iyaaba xukuumadan hayna xumaan sheeg badana ma siyaasi xafiiltan xil ku raadinaya war ceeb duuduuga karoon isxorayn badana ma farmaajo ka xayuubshay xasaanadii ergaga aroo shib naga dhahag xulufooyin badna ma xisbigii xasan shiiqoo mar labaad xil rabaa gacna geel jir hoosaa loo dhaqaay dad ku xoonsan badna ma wadaad xisbul xaakin xambar keensadaya isxilqaan badana ma guuroo xigmaddiisi xarun loo dhisaya war hayfafaala nabadeed hooba lehel inoo lisilgaama meelika jarta janan dareejo xiran iyo xooggu ciidan badana qarax soo xaluushiyo dad xasuuqna badana hub iyo hanti haddaan la siinin xaasidnimada asaa laga bilaabaye war qofku xaasidsana maxartii dad xasuuqo dalka xaalufisa xooladoon badana xildhibaanna miyaa moosho soo xirfadaystay xeer cariirsi badna ma ajaanib xafiiskii bangiga loo xulayba war walaa'un xiiqiiq badana may xildhibaan fiqiya xil uroor badana cabdiraxmaan cabdishakuuroo xariggii berigii ka xanaaqsan miya aryaadhaha waraanan ebeedkay mas-uul soomaaliyeed ka maqlinaan beriga maqlay wasiirkii hore boostada iyo isgaadhsiinta somalilan maxamed jaamac abgaal aaqandha qabatay kadibna wuxuu yidhi wasiirrada mushaarkoodu kuma filna hantida dadkay gacmogacmeystaan aniguna kuwii farataysa jirayaan ka mid ahay xanuun badanaana igu qabtay mugga dadka waxaan ka codsahaa in lay cafiyo koow horta xil dambena dib u qaba maayo dadkuna aad ha iigu duceeyaano kuwa xilalka haayana ha ka waantoobeen xoolaha ummadda intaysan ku bukanin war horta wasiirka allaha caafiye somalilan dadkoodu dad ducaysan weeye xoolahooda mas-uulkii cunaana waa ku xanuunsanaya habaarkooda waa la aqbalaya laakiin meeshaan dadka jooga habaarkooda iyo ducadooda midna lama aqbalo mas-uulkii xoolo dadweyne qaataana waaba ku sii cayilaaba xaalaantay ku sii dibraanba kuwaanu ku naacan warkii hoola dadkantii hadha'i kadibiri ya iritiis shahaadan teegana do'aadan iyo inay habaarkana seelka aqbale horta shahaadadan aad sheegtaan anigu gara waayo beriga haddana ma ducaad ku soo darta war xoolaha dadweynaha ninka cuna hadduu adduunka ku baxsado aakhiruusa ku fakanayna sida ninkaas cafis ha la weyddiisto intay goorigoor tahay shiikh nuuraddiin rooble xuurshow allaha u naxariistaa waxau dhihi jiray ka naqo kariinkaa tuug kaw intaysan ku iman ku tasho kaw haddaad tiira kuwa kuula kuudaad koori kadibna waa kala taageen adna maahaad kabruurutal kadibna waa kutub jinnaad ambase weeska karsame ar abdulow sheeg nuurudiin ilaahay naxariisa ma eray qandaf lama rabo hadda ka joog weeri wargolihii wakiilada ee somalilan waxay dhaheen doorasho cusub ma geli karnee wakhtiga nooloo kordhiyo meeqa beriyaa looga dhiga hadda waa loo kordhiyey war doorasho haddaysan somalilan ku geli karin maa cadaada yimaadaan ayadaa 5 daqiiqa lagu kala baxaa arooda kaaraan maanta kabtaydii ma aragti maradaydii aawi aa ka dhacda arooda waxaa layidhi burcad iyo boolisaa isku gale oo shacabaa dhinta oo burcadaa dhinta oo boolisaa dhintoo dhuq ay ku wada noqdeen beriga kaaraan wax lala yaabaa ka dhacay warsaaka ceelasha biyaha cabsi iyo naxdina dadku ku soo toos ewel baqaxa imaha ku tageena meeya kaa farxad ku soo toosi jira war nabaday ku toosi jireen dadku ina dhegaysaniyo 4 qofood oo meyda oon ciddisa la aqoon oo masaajid agtiista allah saaka la ark goorba waa ku duka rabeen la soo duka waaye
warwar ma haysiina shabaaba shiina weeraray shiina hani jim tan tun yang arang nafti wana ebedkaaba hunguriyaad ka sheekaysa shiina bajiye laguma cune wax kale amaad haysaa shabaab hadday shiinaba weerareen makuuriyada waqooyi u socdaan iyo wiilkii la dhihi jiray in aan warkaas jeegadiisa argaylan shabaab weerar doona in lana kaay warwarkayga dhex geline shabaab shiina ma tigi kareen waa dhulkan soomaalida ee Kenya maamusho shirka gaarisa meel agteeda ka shaqaynayso shiinayse ayay xarintoodii weerareen hadda alaabtay ka jabiyeen dadkay dileen lama oga aryaa Kenyaati waa kii jajabiyay shirkadii hormuuda iyakana ku hore hal jajabsho war ma haytaan madaxweynayga kan lafta garan oo shariifka bedelani odayaalkii ka dhaladii oboro Mansuur yalla kulumi ma yaray lankaas hurinimadiisa degdeg ah wala ka siyaa xasarada badana hal dijiyo kanagi waana had roobo hadii la soo daayo doorashadii dib loo qabto leeyahay lafta garan suu yeeli doona roobo hadii la soo daayo xasan daarima meeshu isaga jiray isagu aanad yoonay gaaskan iska dartan shal dhoore xasan daahir afkiisu xiran yahay maxad roobo ugu kabaysa aryaadaha xasan daahir ma gow bilaabay inay live soo galo taleefanadii laga aruurshay la yiri awal ha u akhrisay way buuga xeerarka maxaabiista warnimayo Hirshabeelle galmudug iyo Jubbalandba dagaalo beelada ka socda waxaana la yiri shabaabka ayaa dadka isku diray oo hubka isugu dhiibaya muga ma ka yeelayaan iyaku qandada baalaahay warnimayo wadooyinkii la lahaa waa la dhisayaayo afgooye iyo jawhar kala aadayay mashruucaas maxaa ku dhacay dadka lagu maslaxaynay wardakadii hobyaado qadar laga sheegay inay 10 bari kadib dhismeedu bilaabanayo aaway ma dadka lagu qancinay warnimayo gohootiga 600 kiiloomitir lan dhisay lan gadil lahay oo warjoon daga damboy mis ee aami ana naga tag waxa ma ogide qadar waxa keentay baabuur gaashaaman oo 7 gaarayo wariyaa baabuur ciidan waa naga bateen mana tagaan meeshii looga baahan yahay wariyaa baabuurtan yaa nimankii loo geynine walba madaxtooyada lagu soo wareejiyay aryaadaha aawa macaawislayda walaxan iska dhacayna ciridka la taagayo wariyaa ciidanka Soomaaliya 30 ku weeyaalay ami Soomna waa 30 kala leeyahay 60 kaas u dhaqaaq waa nimankan maxaad wiilasha macaawisada la ka rabtaa wariyaa shabaab waa kun cunuga la yiri daashna waa 200 baa la yiri ma intaas loo taahaya shaki ma leeyna laba shabaab wada shaqeeyaan wariyaa dada bariis oo arag shubta fadooyta anaga isgaabi aryaa qararac lama rabaa naga taga aryaa baaqi la shabaabka laga soo baxo meel barwaaqa roobkade